ma Soomaali mise ajaanib amisom mise ciidanka xoogga dalka waa hadalhayn ka dhalatay sawirka labadan askari oo ku libisan dareeska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kuna sugan qayb ka mid ah Soomaaliya faahfaahin kooban ayaan ka bixin doonaa arrintan ee adna muuqaalkan leeg saar siina sheer garay labada askari ee sawirkooda idin muuqda waa askar ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka waana rag Soomaaliyeed oo difaacaya ciidooda iyo calankooda kana difaacaya cadawga dad badan oo Soomaaliyeed oo ka aragti dhiibtay sawirka raggan ayaa ku dooday in aanay lahayn dhiig Soomaaliyeed oo ay yihiin ajaanib dharka gashatay isla markaana ku sugan Soomaaliya dooda raggan ayaa xitaa gaartay heer dadka qaar ay sheegaan in haddii raggan Soomaali ay noqdaan in cid kasta ay Soomaali tahay oo dadkii ay isbedeleen waxaana intaasi ku dareen inay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa amisom oo ku libistay dareeska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya askartan ayaa iyagu ku sugan jiidda hore ee dagaalka lagula jiro al-shabaab goobta ay joogaanna waa gobolka Shabeellada Hoose sida ay ila hoose xaqiijiyeen inkastoo aanan annagu si rasmi ah u cadeyn karin arrintan hadalka iyo aragtidaba waa lagu kala duwanaan karaa balse waa inaad ogaataa oo admaanka ku haysaa in Soomaalidu ay ka kooban tahay qabaa'ilo kala duwan haddana dadka qaar ayaa qaba in dhiigga Soomaalida aanu cid kale ku darsoomi karin ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee amisom ayaa muddo ka badan 10 sano waxay ku sugan yihiin Soomaaliya inkastoo haddana aanay isku dareesahayn ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa amisom haddaba adiga warbixintan daawanaya dood ma ka qabtaa in raggan ay yihiin Soomaali haddii ay jawaabtaadu maya ama ha ay tahay waxa aad soo raacisaa waxa aad ku diidayso ama aad ku cadeynayso